saynisyahanada cilmiga caafimaadka ayaa helay codkii nisyamun oo xilligii fircoon ku noolaa dalka masar. saynisyahanada ayaa fuliyey wixii uu ku haminayay nin xilligii fircoon ku noolaa dalka masar. waxay dib u soo saareen codkiisa iyagoo adeegsanaya qalab macmal ah oo lagu sameeyo xididada codka ee ka soo baxa dhuunta. codkii nisyamun ayaa dib loo dhageystay isagoo xarfo keli ah, taas oo ahayd sida wax kala go'go'an. ninkaasi wuxuu noolaa xilligii qalalaasaha siyaasadeed ee fircoonkii loo garanayay ramses muddadii u dhexaysay ilaa iyo oo hadda la qiyaasayo in laga joogo ilaa iyo 3,000 oo sano. nisyamun wuxuu ahaa wadaadkii tibis, waxaana loo malaynayaa in uu doonayay in cod adag oo dheer uu yeesho si uu hawshiisa u guto sida in uu heeso oo kale. markii nisyamun uu dhintay, halkaasi ayay hawshii hadalka ku dhammaatay. hadda 3,000 oo sano kadib, koox cilmibaarayaal ah ayaa isku dayay in ay dib u soo celiyaan. waxay adeegsadaan qalab 3D ah oo dib cod ugu daabacaya qalab dhexdiisa isagoo la adeegsanayo xididada hadalka ee nisyamun oo si degan loo cabiray. ayadoo la adeegsanayo meesha uu codka ka soo baxo oo lagu xiray qalab macmal ah oo cod dhuunta ka soo saara, ayay sidoo kale isku taxeen erayo la mid ah kuwii uu adeegsaday nisyamun. waxaa la rumaysan yahay in mashruucan uu yahay midkii ugu horreeyey ee dib loogu soo celiyo codka qof dhintay iyadoo la adeegsanayo caaqilka macmalka ah. waxay cilmibaarayaasha filayaan in ay mustaqbalka ay adeegsanayaan kombiyuutarro lagu samaynayo jumlado dhammaystiran oo laga helay codkii nisyamun. cilmibaarista oo ay sameeyeen khuburo ka kala socday jaamacadaha Royal Holloway, London, York iyo matxafka Leeds waxaa lagu daabacay wargeyska ka faalooda arrimaha sayniska. farsamada dib u soo celinta codka waxay ina siinaysaa fursad gaar ah oo aanu ku maqalno qof mar hore dhintay, ayuu yidhaahday Mr. John Fletcher oo wax ka qoray cilmibaarista kaasoo ka tirsan jaamacadda York. sidoo kale wuxuu sheegay in hamigii nisyamun uu ahaa in mar kale codkiisa la maqlo, taas oo qayb ka ahayd wixii uu aaminsanaa. waxaa lagu qoray naxashkii lagu aasay waxay ahayd arrintii uu doonayay, ayuu yidhaahday Mr. John. qayb ahaan waxaanu ku dadaalnay in aan hamigaasi rumayno. marka aadanaha laga hadlayo, dhuunta waxay leedahay meel uu codka soo maro oo hadal caadi ah ka dhiga. codkaas wuxuu ka soo baxaa qaybta hoose ee dhuunta, waxaana inta badan loo garanayaa sanduuqa codka, balse waxaan maqalnaa oo keli ah markuu carabka soo gaaro. codka laga soo saaray dhuunta nisyamun waxaa dib loo geliyey qalabka daabacadda casriga ee 3D, balse hanaanka dib u soo celinta codka waxaa la samayn karaa oo keli ah marka uu qofka haragiisa ishaysto weli ayna adag tahay qaybta uu codka soo saaro. arrinta nisyamun marka la eego, haraaga meydkiisa si weyn ayaa loo ilaaliyey wuuna ishaystaa. kooxdan waxay arrintaasi ku xaqiijiyeen iyagoo adeegsanaya qalabka caafimaadka ee CT scanner oo yaala cisbitaalka Leeds. tallaabada midan xigta waxay saynisyahanadu u tahay in ay adeegsadaan kombiyuutar si jumlo dhammaystiran ay uga dhigaan erayada laga soo saaray meesha uu codkiisa ka soo baxo. sida uu sheegay Professor John, nisyamun wuxuu ahaa wadaadkii macbad ku yaala amuun ee meesha loo garanayay karnaag ee tebis oo hadda loo bixiyey Luxor. cilmibaaris ayaa muujinaysa in nisyamun uu u dhintay ilko xanuun iyo xasaasiyad. waxaa loo malaynayaa in isagoo ku jiray da'da kontomeeyada uu dhintay kadib xasaasiyad xun oo ku kacday. nisyamun wuxuu muhiim u yahay taariikhda fog. baaritaanka sayniska ee lagu sameeyey haraaga meydkiisana wuxuu gacan weyn ka geystay fahamka taariikhda fog ee masar. meydkiisa waxaa lagu soo bandhigay madxafka Leeds City ee ku yaala dalka Britain.